halkan waa Som Canada TV kulanti wanaagsan wararkan caawa idin hayna waxa ugu waaweyn Ruushka oo xoojiyay dagaalka uu ka wada dalka Ukraine madaxweynaha Mareykanka oo dunida u jeedin doona fariinta midnimada madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo lagu eedeeyay inuu yahay ninka ganacsada hilibka dadka kadib dagaalka dalka Ukraine waxa sidoo kale idin hayna qorshaha madaxweyne Farmaajo kadib qaraxii beledweyne qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin hayna daawadayaasheena qiimaha badan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena muuqaalka haddii aad ka hesheen like saar aan ku bilowno Ruushka wuxuu kordhiyay dagaalka uu ka wado dalka Ukraine saacado kadib markii uu Ruushka sheegay in wajigii koowaad ee dagaalka uu ku qaaday Ukraine inta badan dhamaaday ayaa maanta waxaa lagu soo waramayaa inuu xoojiyay dagaalka uu ka wado dalka Ukraine dagaalo culus ayaa wararku waxay sheegayaan in maanta Axada ay ka socdaan dalka Ukraine dhowr magaalo oo ku yaala dalka colaadda ay ka socoto ee Ukraine ayaa waxaa lagu soo waramayaa in Ruushka uu kordhiyay weeraradiisa gudoomiyaha gobolka Kiev Alexander ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Slovejig oo ah magaalo ku taala xadka Bulgaria halkaas oo deegaan u ahaa shaqaalaha warshada nuclear-ka wuxuu sheegay in ciidamada ay la wareegeen isbitaal isla markaana ay afduubeen duqii magaaladaasi duqa magaalada go'doosan ee Mariupol ayaa sheegay in xaaladda magaaladooda ay wali halis tahay isla markaana ay wadooyinka ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta khudbad u jeediyay madasha Doha ee dalka Qatar isagoo adeegsanaya muuqaalka fogaan aragga ah ee internetka waxa uu sheegay burburka ku dhacay magaalada Mariupol ay la mid tahay burbur ba'an oo ciidamada Syria iyo Ruushka ay ka geysteen magaalada Halab ee dalka Syria intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Syria bandow cusub ayaa iyadana waxaa lagu soo rogay magaalada caasimadda ee Kiev kaasi oo socon doona muddo 35 saacadood ah duqa caasimadda Kiev ayaa sheegay in bandowgan uu bilaaban doono 8 fiidnimo ee caawa isla markaana uu dhammaan doono 7 aroornimo ee Isniinta ah bandowgan waxa uu imaanayaa xilli ciidamada Ruushka ay ku sii dhawaanayaan saacadihii ugu dambeeyay magaalada caasimadda ee Kiev iyadoo lagu soo warramay in dagaal aad u xooggan uu ka socdo halkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu Putin ku tilmaamay inuu yahay nin ka ganacsada hilibka dadka fariin waxa uu u diray reer Ukraine madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga Poland halkaas oo uu kula kulmay dhigiisa wadanka Poland madaxweyne Biden ayaa khudbad ka jeediyay caasimadda Poland wuxuuna fariin u diray shacabka reer Ukraine fariinta aan u dirayo dadka reer Ukraine waa idin garab taaganahay ayuu yiri madaxweyne Biden intii lagu guda jiray khudbadii uu ka jeediyay magaalada Warsaw ee caasimadda Poland dagaalka maanta caasimadda Kiev Mariupol Kharkiv waa dagaaladii ugu dambeeyay halgan dheer ayuu yiri Joe Biden dagaalka dimuqraadiyadda ma soo gabagabeyn karaan mana soo afjari karaan dagaalka qaboobaha 30 sano ee ugu dambeysay xoogga ismaamulku waxay dib u soo nooleynayeen adduunka oo dhan astaamihiisa waa kuwa la yaqaan ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka maanta Ruushku wuxuu ceejiyay dimuqraadiyadda wuxuu damcay inuu meel uga dhaco Biden waxa uu sheegay inay tahay foolxumo in Vladimir Putin uu been u sheegay isagoo sheegay inuu isku dayayo inuu meesha ka saaro Naasiyiinta Ukraine madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay Vladimir Putin inuu yahay nin hilibka dadka ka ganacsada xilli uu kulan la qaatay qaxootiga Ukraine ee ku sugan dalka Poland Biden ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad telefishinka laga sii daayay oo ka dhacday garoon diyaaradeed ee Warsaw uu ku soo qaatay booqasho uu sidoo kale kula kulmay xubno ka tirsan dowladda Ukraine wariye ayaa weydiiyay madaxweynaha Mareykanka maalin walba waxaad la macaamilaysaa Vladimir Putin waxa aad dadkan ku samaysay maxay kula muuqataa ayaa la weydiiyay madaxweynaha waa nin hilibka ka ganacsada ayuu ku jawaabay madaxweyne Biden dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday inay kordhinayso caawimaadda military ay siinayso Ukraine waxaa sidaas sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Ukraine Dmytro Kuleba kadib markii uu Poland kula kulmay madaxweyne Joe Biden ma jiro wadan kale oo aan ka helnay caawimaad ka badan tan uuna siiyay Mareykanka waana mid aad u muhiim ah ayuu yiri wasiirka geesinimada reer Ukraine iyo hubka reer galbeedka oo intiisa badan uu nooga imaado Mareykanka ayaa horseeday guul aan ka soo hoynay goobaha dagaalka ayuu sii raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ma uusan bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nooca uu yahay garabka military ay ka heleen dowladda Mareykanka balse waxa uu yiri waxaan kulamo dheeraad ah la yeelanay madaxweynaha Mareykanka kuwaas oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ku aadan dhinaca difaaca
iyadoo muddo bil ay kasoo wareegtay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine waxay muujinaysaa dhabar adeeg waa laga badnaa marka ay timaado taangiyada dagaalka, tirada ciidamada iyo diyaaradaha dagaalka Ukraine waxaana caawiyay dadkeena oo si mutadawacnimo dagaalka uga qayb galay waxayna meelo badan kula dagaalameen ciidamada Ruushka ayuu sii raaciyay wasiirka. Ciidamada Ruushka ayaa waxaa laga qabsaday dhulalka koonfureed ee ku xeeran Crimea oo horey u qabsadeen sanadkii 2014 laakiin Moscow ujeedadii hore ahayd inay si degdeg u qabsato caasimadda Kiev ayay ku fashilantay. Qaar badan oo ka mid ah ciidamada joogtada ah ee Ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi ayaa halis uga jira in la hareereeyo ama la baabi'iyo iyadoo rubac ka mid ah dadkii waddankaasi ay ka carareen guryahooda. Kuwa joogay waxay la kulmeen madaafiic iyo gantaalo aan joogsi lahayn oo Ruushka ay ku garaacayaan dalka Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay jiraan arrimahan, ciidamada Ukraine ayaa kaga gacan sareeya kuwa Ruushka dagaalka marka la eego siyaabo kala duwan. Toddobaadkan afhayeenka Vatican-ka John Kirby ayaa ku ammaanay sida ay u difaacayaan qaybo ka mid ah dalkooda. Waxaa sidoo kale farqi weyn u dhexeeya niyadda labada ciidan. Ukrainiyiinta waxay u halgamayaan sidii ay dalkooda u xoreyn lahaayeen una xoojin lahaayeen madaxbanaanidooda iyagoo ka naxay khudbaddii madaxweyne Putin ee dagaalka ka hor ee uu ku sheegay in Ukraine asal ahaan ay tahay dal uu Ruushku abuuray oo macmal ah. Shacbiga Ukraine waxay garab taagan yihiin dowladooda iyo madaxweynahooda waxayna tani horseeday in dadka ay hore u lahaayeen khibrad militari inay qaataan qoryaha si dalkooda uga difaacaan inkastoo ay wajaheen dalka Ruushka oo haysta hub aad u xooggan. Tani waa sida ay dadku ugu dagaalameen jiritaankooda ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ingiriiska. Jarmalka xilligii dagaalkii qabooba waa qaabkii ay u difaaceen dalkooda hooyo iyo qoyskooda. Geesinimadooda waa mid naxdin leh oo cajiib ah ayuu sii raaciyay sarkaalka. Ficil ahaan tani waxay horseeday in askari Ukrainiyiin ah ay ka dagaalamaan jiidda hore iyagoo og in magaalooyinkooda ay leeyihiin difaac qoto dheer. Ugu dambeyn, madaxweyne Farmaajo wuxuu isugu yeeray taliyayaasha ciidamada. kulankaasina waxaa laga helay xog dheeraad ah. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyayaasha ciidamada xoogga dalka, taliyayaasha booliiska, asluubta iyo nabadgelyada ayaa waxa uu faray adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan caasimadda. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, Farmaajo ayaa ka dhageystay taliska ciidanka booliiska, nabadgelyada xoogga warbixin ku saabsan baaritaan hordhac ah falalkii argagixiso ee toddobaadyadii tegay ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne. Si kastaba lama shaacin xogta baaritaanka hordhaca ah ee kasoo baxay taliska. Farmaajo ayaa sidoo kale qoraal lagu sheegay kusoo bandhigay muhiimadda ay leedahay in ciidamada ay kordhiyaan howlgalladooda iyo feejignaantooda maadaama dalka uu ku jiro xilli doorasho ayna nagu soo wajahan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanadihii lasoo dhaafay ay ku guuleysteen dowladda federaalk Soomaaliya inay ka hortagto islamarkaana ay yareeyaan weerarada argagixisada ah. Waxaan dagaal kula jirnaa cadow aan xallaabo ah oo khatar ku ah amnigeena iyo jiritaankeenna. Argagixisada Al-Shabaab ee aan la dirirayno waxay ka soo shaqaynayaan gumaadka iyo xasuuqa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ka heli karaan fursadaasi. Sidaas awgeed waa inaan markasta heegan buuxa ku jirnaa si dhowna ula shaqeynaa shacabkeena. Farmaajo ayaa faray ciidamada qalabka sida in loo dhimriyo shacabka Soomaaliyeed xilliyada ay ciidamada sameynayaan howlgallada lagu sugayo amniga, sidoo kalena la xoojinayo wada shaqeynta hay-adaha ammaanka iyo bulshada si kor loogu qaado wada shaqeynta iyo kalsoonida shacabka ay ku qabaan ciidamadooda geesiyaasha ah. Warkii oo aad kala socoteen Som Canada daawadayaal caawa waa naga intaas.